ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عد كانئاتكم على مقلسان وقاري وينا محمود خليل الحصري. شيخ محمود ayaa ku dhashay magaalada Shibru-Namla ee ku taala koonfurta dalka Masar sanadii 1935 hijriga kuna beegneed 17 Sebtembar 1917 miilaadiga. wuxuu wax ku bartay kuna barbaaray isla magaaladaas. waxaa dugsiga la geeyay isaga oo jira 4 sano wuxuuna quraanka dhameeyay oo xifdiyay isaga oo jira 8 sano. wuxuu ku biiriyay Masjidul Ahmadi ee ku yaala deegaanka Dandana ee wadanka Masar. markii uu jiray 12 sano waxaa la geeyay macal lagu bartay qiraa'adka. markii uu dhameeyayna wuxuu ku biiray Jaamacadda Al-Azhar. Sheekh Maxamuud ayaa ahaa qofkii u horeeyay ee quraanka idil duuba. sanadii 1944 wuxuu kaalinta koowaad ka galay tartan ay qabatay idaacadda Masar. Sheekh Maxamuud Khaliil Al-Xusari ayaa sanadii 1977 wuxuu quraan ka dhex akhriyay xarunta golaha guud ee qaramada midoobay. sanadii 1978 ayuu quraanka ka dhex akhriyay qasriga boqortooyada wadanka Ingiriiska ee magaalada London. Sheekh Maxamuud Khaliil Al-Xusari ayaa quraanka kariimka riwaayada Xafsa can Caasim duway sanadii 1961. sidoo kale wuxuu ahaa qofkii u horeeyay ee quraanka duwa riwaayada Warash can Naafic sanadii 1964. sidoo kale riwaayada Qaaluun iyo riwaayada Duuri ee can Abi Camr al-Basri ayuu duway sanadii 1968. Sheekh Khaliil ayaa dhintay 24 November 1980 Rabbi naxariis jannaha ka waraabiye.